السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha sharafta leh waan salaamayaa. Waxaan leeyahay maalin wanaagsan. Maanta waxaan rabnaa ka hadlo mawduucan u arkay in aad muhiim u yahay in laga hadlo oo laga bixiyana advice laga bixiyana u baahan. Mawduucaas wax kale maahan waa nowadays waxaan compare ku sameynayay health workers keena Soomaaliya iyo maxaa la dhahaa kuwa internationalka ee adduunka intaan wax ka soo arkay aniga. Really waxa u dhaxeeyo farqi aad u weyn baa ka dhaxeeya. Maxaa la dhahaa dhankeenana problem aad u weyn baa ka haysta health workers keena qaabkay u dhaqmaan iyo xaaladaha adag ee ka jira. Marka hore waxaan ka hadlayaa waajibaadka la isaga baahan yahay kala health workers-ka kadibna qaabka adduunka u shaqeeyaan intaan soo arkay. Kadibna waxaan raacsi doonaa problemkan haysta Soomaaliya health workers-kooda. Waxaan ku soo gabagabay doonaa advice aan sii doono markaas health workers-ka. Saan wada ognahay qof bahda caafimaadka ma howlwadana caafimaadka waxa aad u saaran mas'uuliyad aad u weyn. Waajibaad waxa saaran aad u ballaaran. Waxa ka mid waajibaadka marka in health workers-ka ay noqdaan kuwa maxaa la dhahaa dulqaad badan, naxariis badan, maxaa la dhahaa dulqaadkooda maasha Allah yahay, iska faraxsan, waji furfuran leh, noqon karana qof siraha bukaanka xafidi kara, dhaqan ahaan ilaali kara. Waajibaadkaas aad buu u muhiim yahay in laga helo bahda caafimaadka. Any kind nooc ha ahaadaan, doctors ha ahaadaan, nurse, midwife, dhammaan noocyada kala duwan ee howlwadeennada caafimaadka. Sababta intaas u tahay waajib waxa waaye waxaa ku imaanaya bukaano xaaladooda iska adag tahay oo maxaa la dhahaa dhibaato iska haysato kala. Qofka caafimaadka ma howlwadeen waxa lagu baahan inuu waji farxad leh ku soo dhaweeyo bukaankaas falcelinta ama dhibka uu geysanayo ama qof xanuunsan wax walba ka dhici karo in dulqaadkeeda leeyihiin bahda caafimaadka howlwadeennada caafimaadka u dulqaadan karaan una sabri karaan kadibna kaya fiican u sameeyaan qofkii si naxariis leh oo dulqaad ku dheehan tahay. Halkaas markaa kasoo tago adduunka kale waxaan soo arkay noocyo kala duwan isbitaalo ah. Really qaabka health workers-kooda u shaqeeyaan aad baan u jeclaaday xaqiiqatan. Waxaa lagu soo dhaweynayaa marka hore furfurnaasho naas oo aad u diyaarsan oo dadkaas inay soo dhaweeyaan bukaanada si farxad leh ku dheehan tahay maasha Allah. Kadib doctors-ka marka lagu gudbiyo kala sidoo kale maasha Allah xitaa dhakhtarkii kala kulanta hore kama weydiinaya problemka ka cabanaysay laakiin waqti yariiso wuxuu ku siinaa wuxuu isku dayaa inuu ku farxad geliyo wax fani kaaga sheekeeyo ama ku daaro kala sidii cunug yar camal wuxuu isku dayaa inuu ku ciyaarsiiyo si uu markaas haddii xaalad kale kugu furneyd soo kaaga dejiyo kala adoo faraxsan buu markaas ku weydiinaya problemkii ku haystay. Kadib markaasna daawooyinkii wixii markaas ku qoraa asoo markaas xanuunkii ama dhibkii ku hayay ka dhigaya wax basiid oo macno lahayn. Qaab waxaa dareemaysaa inuu isticmaalayo qaab psychology ah. Psychological support aad bay muhiim u tahay kaliya in daawo bukaanka loo qoro laakiin waxaa muhiim ah in culeyska iyo fikirka iyo haysto markaas xanuunka ku reebtay in markaas qofkii psychology ahaan looga daaweeyo aad bay u tahay muhiim. Kadibna markaas wuxuu isku dayaa inuu aad deeply interview kula sameeyo oo waxyaabaha shakiga uu ka shakinayo qofka maybe inuu qofkan ay haysato family problem inuu haysto economical problem. Wareysi wuxuu la yeelanayaa aad deeply ah oo la sameysana maasha Allah. Kadibna markaa waxa u gudbeysaa qeybaha kale markaasna dad kale oo aad u faraxsan oo ayagana u diyaarsan qaabilada bukaan oo aad loo carbiyay haddana kadib la kulmaysa maasha Allah.
really aad baa u jeclaanaysaa goobtaas. Waxaan jeclaanaysaa weliba aadan ka tagin oo aad iska joogto meesha. Even booqashadaada labaad xataa waa sugi weynaysa because meel naxariis iyo farxad iyo hadal macaani aad kala kulmaysid waa. So marka waxaa usoo noqday qaybteena Soomaaliya markaa joogtid oo kala dad waxaa moodaa yacni health workerskeena markaa fiiriso nooc walba ha ahaadaan waa dad u diyaarsan waxaa moodaa dagaal ee difaac ku jira. Hadduu bukaanka wax yar dhaho ama in ayagana la xifaaltamayaan. Hadduu bukaanka qalad ka sameeyo ama hadal xun ku dhaho in bukaankii punishment lagu sameynayo ama daawadii laga istaajinayo ama isbitaalkii laga saarayo ama listi ciqaab xun la yar la marsiinayo. So dad meesha waxaa jooga wada xifaaltamaya. Bukaanka waa qof iska xanuunsan maybe xaalad family ah u sii raacsan ama xaalad dhaqaale u raacsan. Sabab ogna qofka markuu xanuunsan yahana waxaa ku imaanaya isbedel. So dabeecadiisana aad bay u xumaanaysaa. Dabeecad xun oo yeelanaa Soomahan xanuunka keenaya. So hadduu markii qofkii bukaanka yacni dadkii howlwadeen caafimaadka tababarnaa wax soo bartay u diyaarsanaa inay bukaanada qaabilaan hadiiba bukaankii tolo teed kala dhahayaan oo ayagiiba bukaankii naftiisa u cabsahayo. Wax aad looga xumaado really. Aad iyo aad wax looga xumaado waaye. Bukaanadii haddana waqti badan dhakhaatiirta aysan siinin. Aniga guud ahaan ma dhahayo dhibkaas yacni waa wadanka dhan. Yacni ma 100% laakiin waa mostly waxaan ka hadlayo. Yacni inta ugu badan waaye bukaanadii waqti badan ma la siinayo. Maxaa la dhahaa asoo cawashadiisa waliba in yacni cawashada laga joojiyo la dhaho okay daawo loo qoro. So markaan dib u milicsaday oo u baaray xaalkaas ani ahaan fikradeeda waxaa ii soo baxday in caqabada ugu weyn ee xaaladaas ka dhalatay ay tahay numberska badan bukaanada la qaabilayo dhanka dhakhaatiirta. Dhanka kale health workerska kalena ay tahay shaqada ku badan. So bukaanada dhanka bilow qaybta dhakhaatiirta kala bukaana hadduu numbers badan oo bukaano dhakhtarka qaabilayo waqtigana ku yar yahay soo bukaan walba xaq ma u helayo inuu waqti fiican dhakhtarka la kulmo oo cabashadiisa si fasiixa u dhameysto kadibna advice dhakhtarkii uu siiyo kadibna psychological support oo u sameeyo waqtigaas fasiixa oo lagu qanci karo bukaanka ma helayo. So qof kasta marka bukaan kasto waa la boosiinaa sababtoo xitaa waqtiga aad u yar in numbersku aad u badan. So boqolaal qof oo maanta la qaabilay oo ayagoo faraxsaneen gurigooda ku laabto waxaa aad uga wanaagsan 30 qof oo si farxad leh oo yacni si degan oo waqti fiican dhakhtarkii ay bukaankii wada qaateen oo isku faraxsan oo isjeclaaday isfahmay wax walbana u sheegtay dhakhtarkii oo maanta gurigiisa ku laabahay asoo faraxsan intaas aad yacni u wanaagsan. qaybta kale markaan usoo gudbay health workerska shaqadii ku badan. Shaqadii qofkii caafimaadka shaqada oo health workerska shaqadii ku badan oo dabeecadii ku yar tahay. Qofka shaqada ka badan dulqaadka ka yaraanaya. Iyo bukaankii wax xanuunsan oo isna dulqaadka ka yar baa is helaya meesha marka dagaal maalin walba waxa dagaal dad isku dhigan buuq isa waxan istaalada ku arkaysaan. So dhibka jir waxa marka bukaanka iska xanuunsan u baahan in loo dulqaato xanuunkiga keenaya dabeecad xumadii dulqaad yaridii iyo shaqaalihii oo asigina shaqadii ku badan tahay oo dulqaadkii ku yar baa is helaya marka. Halkaas baa caqabada ugu weyn yacni ay ka imaanaysa. So waxa wanaagsan marka adduunka marka fiiriso kala waxa yacni bukaanada iyo naaska aad yacni number ahaan way badan yihiin. Tusaalahaan haddii la dhaho hal naas la dhaho wuxuu u shaqeynaa 24 patient aad bay u adkaanaysaa. Shaqo wanaagsan yacni ma qabanayo oo bukaanada ma wada qanci karo because shaqadii ku badan. Laakiin haddii la dhaho halkii naas 2 bukaano kala ama 3 patient kala inuu yacni u adeego si fiican baa waxa ka soo baxaysa yacni shaqo wanaagsan iyo isjeclaan iyo jawi degan oo shaqadiisa si nidaam ugu soo baxayo. aad bay u wanaagsantahay marka in yacni numberska la yareeyo. So marka advice-ka ani aasiinayo waxay tahay markaan ogaaday result-iga ka dhalanaya inay tahay numbers ku badan ee shaqadii badan
waxa wadankii yacni goobihii caafimaadka problem ka taagan ay tahay advice ahaan waxaan sii lahay howlwadeennada iyo madaxdoodaba waxaan dhihi lahay in yacni la yareeyo numberska bukaanada la qaabilayo 30 qof in la iska qaabilo ama 20 qof oo si nidaam oo saafi ah yacni cabashadooda ay wataan iyo maxaa la dhahaa advice-ki iyo wixii walbo la sii lahay oo guud ahaan dhammaystiran in yacni la helo ay guryahooda ay ku noqdaan ayagoo faraxsan markaasna yacni wixiisa qabo soo noqoshada dambe ayagoo aad u xiisanayaan la kulmaan bukaan naaskana in aad yacni shaqada looga yareeyo kala waa ogahay I know it's very hard laakiin in yacni si wanaagsan la sameeyo kala 3 bukaan 4 bukaan camal bukaanka in naaska loo dhiibo si markaas shaqo wanaagsan meesha ay ka soo baxdo bukaankiina uu qanacsanaan yacni fiican helo so aad bay u xun tahay bukaan xaalad adag ku furan tahay naaskii laga rabo inuu ka fiican siiyo oo dulqaad fiican u sameeyo in oo buuq ku furo bukaankii oo warfaadsan so meesha wax fiican kama soo bixayso marka problemkaas waxaan jeclahay in aad loo xaliyo si markay isbitaaladina u noqdaan goobo maasha Allah lagu farxayo tegitaankooda oo dadka xiriir fiican yacni dhex maraya shaqaalihii iyo bukaanada dadkii shaqada loo qabanayo kala intaas baan yacni kusoo gabagabeynaya wixii aan khalday naf shaydaan bay ahaadeen intii aan saxayna min Allah bay ahaatay waan filaa in aad looga faa'iidaystay waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh